horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaaya warkii hore war soo dhaaf maanta baarlamaankii labay u kala baxeen war nabadii noolii mucaarad may u kala baxeen gaar yeesle iyoonay gaar noolle waan shalbaheen war gebgeblay guulwada may u kala baxeen shimaa ciidankii guulwadayaasha iigu dambaysay war markii horeba aqalka sare iyo aqalka hoose ahaayeen war waxaan ii sheegay waa golaha shacabka keliyaena dhegaysa golihiyaa wuxuu u kala baxay golaha shacabka iyo golaha shacabka waxayna isku qabsadeen maanta dastuurkaan ka doodaynaa iyo amnigaan ka doodaynaa kadibna intii golaha wasiirada ku jirtay ayaa mid mid u siibtay war gacanka hoose miyaa laga hadla nimanka yaa wasiirada baxay ama khayra soo wacay hee war khayra wasiir ma wacay waa ra'iisul wasaare warka naga maqla hadda waxaa la arkay tiradii baarlamaanka oo fadhigu ku qabsoomi lahaa oo aan dhammayn kadibna guddoomiyuhu wuxuu yidhi koorabku mar lambe shirku waa xidhan yahay war maantayoo dalka amnigiisu meeshuu maraya aan ognahay nimanka yidhi dastuurka aan ka doodno waxay duugdugayaan tiro badana war waa in loo hoggaansama ajandaha ay soo diyaariyeen guddoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ah may su'aalo oo golaha shacabku ahaan oo dastuurka halka doodoy leh horta maday isaaqow haantaan asidaberi gashow intaan dooga soo qaadaa walaagiyo haddii eryaanka karhaanakii hamar oo fool ewa fooldiingun eryaanaha nasa karhaana ma aha war maanta daahir amiin jeesow golaha shacabka ka mid ma ahayn golaha shacabka ayuu ka mid ahaa war daahir amiin jeesow afayeenka xukuumadda ma ahayn ma maranta adugu arbaarlamaanku beriga inay kala baxeen waa caddaatay oo boorarna ay soo qaateen oy golaha shacabka iyo golaha shacabka u kala baxeen anigu intaas waxaan ku dari lahay mugahow beriga baarlamaankiya burya biyuu kala baxeen beriga baarlamaankiya burya biyuu kala baxeen haye beriga ciidan booliis ayaa waxay weerareen xarunta TV-ga Universal waxayna dhaheen canshuur ayaa idinku waajibtoo leedinka rabaa soo dhawaado canshuurta noo sheega markii la yidhi xabaday jaaciyeen hadda ilaahay waa ka badbaashay wariyaasha laakiin waxba la iskuma reeban oo kabtayda ah oo kabriidkayga ah waa ka dhacday war booliiska canshuurta raadinay taraafika qoryo wadato kaloomiya war maya waa bax kasi waraagaasina warfaafinta madaxtooyada Cabdullahi Maxamed Axmed wuxuu yiri askarta Universal TV weerartay waa la soo qabtay dhamaantood sharciina la horgeynaya war ma haysiina xalay ciidankii hore ciidana lagu sii kordhiyay magaalada Muqdisho dhagxaantii iyo jawaanadii iyo dhufaysyadii hore u jirana kuwa kala lagu sii badiyay kala wareegna hadaad laamiga ku taqaaneen xaafadihii iyo luuqyadii iyo jacdayaashii yar yaraayay gaartay hadda kala wareeg war kala ma yaala kala wareeg war kala wareeg qofkii ka dhagaadayga nambarka EVC-ga loo sheegaya war kala wareeg oo abniga lagu sugo uma diidano una laakiin kala wareeg oo nambarka 5 waay nambarka 8 waay hadaba yaala gardoro waay yaa beriga sabti waayo beledkana qaraxyaa ku jira la yiri in abniga la sugo xaad ku diidaysiin xabadna kala wareeg haydayna war maysiina saraakiisha saldhigga xamar weyne loo magacaabay macaal taliyaashu dariiq walbay taagan yihiin marka ciyaal Facebook waa sheekadu waa ka tagtaa war waagi hore hadaad maqli jirteen ammaanduulaha militariga hadda waa la bedelay generaal Odawaay Raage oo ammaanduulaha ciidanka militariga ahayna taliyaha ciidanka lugta laga dhigay ma naqayahe nin la yiraahdo generaal Cabdirashiid Cabdullaahi oo cusuba bacdiga hadda laga fiiqayna waxa laga dhigay ammaanduulaha ciidanka lugta war hadii taliyaasha ciidanka lugta laga wada dhigay buruufda maxaaran ay ka tahay hal weeyaan war taliyaasha ma taqaaniin inaga dhageysta waxa kale la magacaabay Sarayagaas Cabdi Xasan Maxamed oo ahaa oo qaybsanihii militariga ee safaaradda Soomaaliya dalka Sacuudiga waxaana loo magacaabay taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka oo safaaradda Sacuudiga militariga Soomaaliya ma xarun ku leeyahay war aan helasaas ma wiilasho bilang madowga dhuuriya kaabsalan qor jiran kaabsalan qor oo kiileeyo maday isaaqow hadana ma dhuura casaad noo keenta war dawladdu haday difaacaysay dilkii Jamaal Khashooqi ilaa militari baa Sacuudiga noo joogay ariya militariga Sacuudi jooga ma la soo tarxiilayaad itira hadana war agoontii militariga iyo tii booliiska maanta waa banaan baxeen hadda cabashadii mushaar la'aanta ayaa iyagana gaartay war ilmihi aabayaasho difaaca ku jireen amba mushaar heli
heline kuwii aabbayaashood dhinteen yaa tabar u haya war haan agoonteen naftiyo aawadheediyo tukaamo magadaanaada difaaca ka dhex dhimideen arrihaanu madaxa kuu gasheen dhegashibda war kaloo cusubaa mahaan yaali shiikh barofesor yixiye caamir wuxuu yidhi waxaan maqli jirnay culummo soomaaliyeed oo magacoora magaalooyin la raaciyo soomaaliyeed sida shiikh aweysulbaraawi shiikh saylici shiikh harari shiikh muqdishaawi shiikh baardheere iyo kuwo kaloo lamida haddaanse waxaa soo baxay shiikh kinyaawi shiikh adis ababi shiikh landanaawi shiikh oslaawi shiikh homaawi shiikh minusitaawi mugga waa yaabay culummadiina shiikh qurbajoogaawi miyay wada naqdeen war shiikh salaadii jimcada shala masaajidka ka khudbeeye wuxuu yidhi la dagaalanka musuq maasuqa dawladda madaxda sare ha laga soo bilaabo agaasimayaasha yaa lagu meeraysan wariyadii war muuse buuximo ogolaanu ku nidhi musuq maasuq dee laba wasiir baa lagu tuhmay musuq maasuq labadii xilkuu ka xayuus war muuse musuq waa handaraabay miya mase waa imaqashii hadda xilkuu ka qaada baanu ku nidhi war maanta waxaa shir jaraa'id qabtay wasiirkii hore ee duulista hawada siciid qoorsheel wuxuuna yidhi waraaqaha beledka lagu faafinayo dadka magacyadiisa lagu qoray iyo warbaahinaha madaxa bannaan qaarkood oo la leeyahay dawladday lacag ka qaateen waa been abuur dacaayada wuxuu yidhi culumaa la sheegay abwaanaa la sheegay siyaasiyiinaa la sheegay aan anugu ka mid ahay shilinna dawlad kama qaadan waa been aan sal iyo raad lahayn warkaas horta niman yahow beesa waa qaadasho laakiin beenu sheegid ma aha war ma haytana guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose mudane najah hadda ka hor intii hilkilika gaadiya wasiirka madaxtooyada koonfur galbeed likuweeli mar kale gobolkii ku dhamaaday ayaa ka aalay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose lahaka nagi hatana firig may fadareed shabeellaha hoose inoo walla gobol oo iska faday widay war waafow guddoomiyaha ma soo magacaaway guddoomiyaha najah may ba eray waafow lan uswalko halaay ma jirto lebada naasl nuugile gobolka lebada ari war wariye Ilyas Cabdi Cali hargeysuu ka soo hadlay wuxuu yiri qaraxii Muqdisho ka dhacay Khamiistii dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland ayaa ku dhintay warka Ilyas waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor war Cabdiraxmaan Faroole yiri wuxuu yiri qaraxii ka dhacay Makka al-Mukarrama ambaashadoor bari baa lagu dilay qaraxii ka dhacay Centralna Cabdi Shakuur Mid Aadan baa lagu dilay marka dadka reer Puntland baa la ugaarsanaya buu yiri 200 qof aan ku dhimatay labada qarax warnimada waxa la yiri waxaan rabo qofkaan ila rabayn dawladdan rabine mana rabo qofkaan rabin inuu yeelo saan rabo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin xsaabtii kala maanay wuxuu jeedaqal waxaan ama eexiyo beeno alla looga fogaado anigoon u bareerin abaarteeda wanaagsan haddii aanan isiibin waa feefanayaa iga raallihaada raaliga januuca uow arrajinna xaadigu ride jinnaha ku dardaray adiga waryaa jinni maa u dhiman markaa leedahay jinniyaan lagu ridin war waxaa la yidhi ti'am dhani hadduu tiimbado taageer badan laayo tarabna xaaladdu tagto maydku tira beelo kacsi madaxda talisaahi waa diri taqaana war TMkiisa ba ku qarxay dad ka hadlaysid taabida duqa magaalada ahay markaas TM nooga tilmaamay kadib kunkii baabuuro qaraxday aaway arrimaha socda haddaan maamulka iyo madaxda dalku wax ka qaban wax ka bedelin macna kale yeela doona waqti aan fogeyn aryayaadu ribayhe yarowga hore wiinagan iska reebay annagu waa aragnaa waxa socda ma ribayna waa